أنا هأتاجنها قل مدو معنى له وهأتاجنها قل مدو لأن يريد هذا شقاو أبور وهأتاجنها قل مدو أقومته وقابس وهأتاجنها قل مدو الدولة فدرال كان صاحب لها موسم ربنا تكن ونتاجني قل مدو حلاليس وحلي راب مغشان سوما أفرتني شمبري حمر انتو كسوة مستقف أوي مالي هايدين بلان قال يا هدابا عن فرصة أهلو إنا مدعوين إذين نقض إنا نقضو ماشا وقو نستر موسم رب قل مدو وحيوبا هانتا مدعوين كرتلي قف كان كرتلي لهين حتى واحد لو أقول لها ما استعمالي كرو أندر كباس قف بكو أقول لهين واحد لو أقول لها ما استعمالي كرو وحكور هيسان بدنا شقيات ميزانية للدجال سنة هي أدب بدن والميزانية دول استعمالنا جرا سببته أودوا لفلوسه تعبان مثلا إنسانا مالين دولة فدرال كأه وزير كمالية هشيس بوس هاي هرمرت الدولة ده هوسه أو العقل بوسي ديني أو بنتلان يو جبلان يو بفرق البيت العقل بوسي هيرش بيلي قل مدونا لما حسين بيروا استاندرز واي وول بنك waxa uu rabo wol bank waxa uu rabo hadaad aqoon u lahayn iyo karti oo dad adeegsi karin dadka kartida lahaa lacagti wol bankiyo taala dhacday waa ka warhaysan labadii dawlad goboleed ee hadda Hirshabeelle iyo Galmudugna mucaarad kuma aha dawladda labadii mucaarad ku ahana oo libaaxo gurigooda lacag loogu geeyay Ahmed Madoobe iyo Dani ma asxaana hadda kala dhaxay dawladda kala ma dhaxay gurigooda lacag loogu geeyay sababtu waxay tahay capacity leey aniga waxa iga rabtiin inaan capacity-giina dhiso awoodiina aan dhiso dawlad wasaaradeedu dhisan yihiin civil service ku dhisan yahay maaliyadeedu dhisan tahay xisaab celin samaysa inaan dhisaa laga rabo wasaaraha iyo xukuumadda juhdiga ay meeshan ku soo bixisay mira dhalkiisa ku sheegaya mira dhalkiisa waxa weeye madaxweyne xaafo gaalkacyo fadhiyo oo baarlamaan dhisay oo shaqo wata oo halkaas jooga asaga iyo dad badan oo halkan ka caroodanay isla joogan maamulka ahlus sunna wal jamaa oo halkan ayaga dhuusamareeb qayb kamida fadhiyo oo 20 xildhibaan iyo intii kale ayaga hadda raadsanayaan ayaga u talaahay jooga oo aan qayb ka ahayn baarlamaanka intiisa kale iyo xukuumadda dhisatay oo ayadana meel joogto murashaxiinteennii ugu tuun weyneed mucaaradka oo ayagana meel jooga oo le waxaas la qooshay raallina ka maniin mana ogoli 4 galmudug ay maraysaa ra'iisul wasaaruhu wuxuu u yimid hal galmudug oo xaafo gaabin ma uga daray ma soo uga raay su'aashaas marka waxaa la rabaa inaad adigu ka jawaabto miidiyu ma ogola in su'aal la weydiiyo aniga waxaan xasuustaa dad badan oo miidiyaha soo gala oo yiraahda galmudug midaha la dhisaya wadawaa galmudug oo yaro cadaada ku dhisay wadawaa inaan aniga ilaahay markiisa inaan amaanaad ma jecel kowde laakiin inaan garmeeda waxaan ogaaday intii kale oo dhan soo xaliya hal xaba ayada iga dhimanay nimankii dawladda haystay oo waxaad ogeed haystay ayada maaha aniga meesha xaaf ka bilaabo ma meesha aniga ka bilaabo ma afar xabay u celshay galmudug afar meel ku kala hoyanaysa caawa jirta marka waxaan rabaa xageen ka aadayna meesha aniga waxaan ka mid ahay dadka nabadoonnada ah ee aaminsan in dawladdana lala noolaan karo karaamadan la ilaashan karo federalismka waxaa loo sameeyey in dadka dawladda laba level ay yeelato level waa levelka federaalka ah oo xamar ka taliya waajibaad iyo wuxuu leeyahay xuquuq levelna waa levelka dawlad goboleedka waajibaad iyo xuquuq uu leeyahay horta waxaan rabaa inaan idiin sheego dastuurka haddaad akhriseen iyo haddii kaleba qodobada 48 49 50 51 52 53 54 yaa waxay ka hadlayaan dawlad goboleedyada iyo dawladda xiriirka ka dhaxeeya iyo xuquuqda mid walba leeyahay qodobka 54 aan rabaa marka inaan idiin sheego awoodaha heer federaal ay leedahay dawladda federaalka koow waa arrimaha dibadda laba waa difaaca qaranka oo militariga u dhigmo saddex waa jinsiyadaha afar waa lacagta siyaasadda lacagta lagu samaynayo horta afartaas cabdiraxmaan cudowaa oo dawladda federaalka afartaas mid kamida ku haysta haddaad aragtaan anigaa gardaran haddii afartaas laga soo tago dawladda goboleedku intii ka soo harta ayadaa leh booliiska dawlad goboleedka amniga dawlad goboleedka waxbarashada dawlad goboleedka caafimaadka dawlad goboleedka
laakiin waxa aniga xaq ugu leeyahay inaan dowladda federaalka miisaaniyadda inteeda badan soo martaa inaan kala shaqeeyo labadaas marka dadku waxay aad u kala fahmi leeyihiin dowladda iyo yaa dadka oo la macaamilaya yaa gardaran haddii mararka qaar dowladdu la arko ayadoo dhuusamareeb ila maamulaysa oo rabto taliyaha booliiska degmada dhuusamareeb inay soo magacaawdo xamar ka soo magacaawdo markaas ayadaa iga gardaran soo maa marka waxaa la rabaa always maaha qaladku inuu hal dhinac jiro maaha wada shaqayn la-aantu labada dhinacba waa ka imaan karta waxyaabaha lagu ammaano waxaa ka mid ah dad iska soo horjeeda uu maamuli jiray team of rivals aa la yidhaha buu leeyahay laga qoray tiimkiisu wuxuu ahaa team of rivals warniga aniga waxaan aaminsanahay inaan ahay ninka keliya ee isku hayn kara madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisa iyo wixiisa oo dhinaca mucaaradkii oo dhinac kala maaragtay culamaa udiinka iyo madaxweyne xaaf iyo dhinaca qabaa'ilka iyo dadka degan oo dhinaca waxaas oo dhan ninka u odayeyn lahaa oo isu keeni lahaa oo galmudug jidka ku shubi lahaa inaan aaminsanahay laakiin xataa waxaan ku hubinaya aniga nin team work ku fiicanaan soomaalinimadana nin ku fiicanaan nin wax in la kala gooyo jecel maayo waxa in la isla haysto oo adigana aad dhinac uga fadhido anaan dhinac uga fadhido isla joogno marka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo kulli waxaa u sheegaya ha iska kay iimaansadaan dadka reer galmudug meeshay taageeradooda u badan tahay marka anna waxaan ballan qaadayaa cabsidoodaas inaan xalliyo oo aan galmudug iyo dowladdii kala raaracda aan la dhihin